barnaamijka qofka qof waxaa toddobaadkan marti ku ah injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID mudane gudoomiye marka hore ku soo dhawow barnaamijka qofka qof ee telefishinka goobjoog. Assalaamu calaykum. mudane gudoomiye waxaad ahayd murashaxii ugu codka yaraa marka la eego doorashadii sanadkii hore ka dhacday Somaliland 3 jeer baad tartantay 3daba kaalinta saddexaad baad gashay. ma noo sheegi kartaa 3 sababood oo sabab u ahaa guul darooyinkaasi ama inaad natiijada inta la ka keento doorashooyinkii Somaliland ka dhacay? Waa very simple. Horta doorasho markay gelisid ku soo talagal dhacisi helisba. laakiin objective-ka aad u gashay doorashada ayaa muhiim ah. anu waxaan galay dalka oo inaan soo celino qarannimadii 60kii. laakiin soo celino oo si nacasnimo ah aanu u bixinay aabayaasha u bixiyeen oo anu dhowrisi danjira 7 carruur wata oo mishan bilo jir ayaan qaxay oo la igu dilay reeraan la igu dilay aan u baqay in la igu dilo inay taas carruurta ay ku dhicin dabana ayaan horta u sameeyay markaad eegtid ilaa isku eegtid aniga iyo isku eegtid siiraayo isku eegtid riyaal isku eegtid everybody visionka aan leeyahay iyo programkayga nilay ma jiro laakiin factories kale jiro lagu footay meesha ma jira factory oo koow qabiil tahay oo laba tahay lacag tahay doorashadii hore markaan galay 2003 I remember maalintii gelisay foodka loo dareeriyay safiirkii Mareykanka ay weydiiyay Mansuur maxaad lacag haysataa kasaan 500 waan haystaa inaan abradaagtina 2,000 birta ay soo diraysaa oo kale is muraaqibiinta anaga sabixin jirnay wala dhacda adduunka imaga yarkan la yiraahdo Chelsea Trudeau haysta imaga maxaa Canada he was the smallest boy natayaha laga bixin karo waay marka luka kala wala ADSK wuxuu noqday smallest body buu noqday Bukhari markaan maxamed Bukhari Nigeria 4 jeer buu orday this happens like waxa weeye muhiimadu never give up weligaa si deyn u jeedadaadi siyaasadana ha gelin haddaan objective lahayn oo lahayn aad raad ka tagtid maaha siyaasaddu maaha siyaasad reer Soomaaliya ya badan Soomaaliya inaad lacag ka samaysid taasoo waxa legacy ka tagtid legacy taariikh faacinde taariikh ma tiisad bar taariikh marka waxa weeye my first objective ka ugu weyn horanta u leeyahay ujeeda waxa weeye inaan dal yeelano Soomaaliya way jirtaa is existing as my friend tan kale waan gaari insha Allah taala inta uu ku yidaayo kan it's a matter of time hada caafimaad nafteeda marka hadii ay jirtay ujeedada siyaasadda u soo gashay adiga maxaa ku diidayay si aad u gaadho ujeedadaadii inaad isticmaasho qabiilka iyo lacagtaba waxaan qabiiliyada mismo wada maraan iyo qaranimada wada maraan Maxamed Siyaad Barre waxa markuu inqilaab ka sameeyay dacayda ka soo horiyay marka hore leeyahay dawladda muusanaasa ay sameeyeen KGB du sameeyo dawladda Soomaaliya ka dhigto garabka reer bariga marka waa loo dabaaldegay dadka u dabaaldegay u badnaa reer waqooyi oo dariisa wasaaraha lahaa markii dambe wuxuu noqday qabiili markii dambe wuxuu noqday jilib markii dambe familigiisa asqabsay xitaa bahir that's qabiil modern state qabiil mooda kana that's why marka Soomaaliya wax hortaagan horumarkeeda waxa weeye qabiil ba hortaagan qabiil iyo modern state mooda qabiilka waxa haday yimaada institutions adag la dhiso oo law and order samaysto qabiilku iska suuliya marka kacaanka maalmo hore qabqabtiisa hore Maxamed Siyaad Barre caaqil maad maqli jirin suldaan maad maqli jirin beeldaajiyal baa loo bixiyay ya waxay shaqeeyeen institutions marka qabiil aanu qabiil kuwan korin never been qabiil marka gudoomiye hadii aad og tahay qofka qabiilka iyo lacagtaba isticmaala adiguna qof guul diyaar u ahayd maxaad labada u isticmaali weyday baan uga jeedaa labada isticmaalkan language qabiilka ma gaaro ma garanayaan qabiilka language ما هذا قبيل صراحة استعمال الدوكي دوتي قرحج ساي محو كم فايدة برسنتيج هذا الشيء هي كوع ذي هذيك الله أعلم برسنتيج كان إلهي وحي بقول قال معي لكن وحن في اليوم هرقيسان كهلو إن هرقيسات وهيك
mar afraad ma soo sharaxaysaa se ma jirtaa qorshe kale oo aan adiga ahayn in la iska soo sharaxo xisbigaaga oo xisbiga cid horta waxa u daranta waxa weeyaan mushahadna haysta waa leadership ma haysan xisbiga marka heshid qof ideology-gaagii haya marka heshid qof programkaagii fulinaya marka heshid qof vision-kaagii qaatay marka heshid qof istiraatiijiyad leh waad u dhiibi kartaa waa sharixi kartaa laana waxa ku ah guul inay policy-ga ay socoto laakiin dadkan dad principle leh ma waa dadka markay Soomaaliland kursi ka waayaan xamar tegaya marka xisbiga lacag ka waayaan xisbi tegaya wax marka qofku xisbiga soo gelayo programka xisbigan u dhiibnaa sharciisa midna ma akhriyaan markaan haddaan heli lahaa dhalinyaro wax baratay oo garanaysa oo vision leh waatan mara ninka qolka musharix sameeyaan waa Jamaal baan sameeyay first time markaan galay doorashadii arkay inaanu urdi inaanu mari karin nin iska daa aan noqon karin magaalada liida markii wuxuu ku feel garoobay maashi congress-ki marka haddaan helo qof torchkaygii qaaday halkiisii awlad laakiin ilaa hadda mushkiladna haysa waa crisis leadership anaysa oo saddex xusub hadda eeg